xilliyadan dhiman waa xilliyo adag la socda anigu waan idin sheegay markaan digniin idin siiyo oo wax idin sheego fuliya nin qidad militarina wax ka yaqaan dadka wax khiyaameeyana nin khibrad u leh oo yaqaan baan xilligan kala guurka oo saacadaha yar oo dhiman carqalado badan baa la sameyn karaa diyaar garooba waad foojigantiin waan ogahay waa in aad macnaha waxaan ka wadaa un inaan macnaha geenyada waxaa loo garfaa inay ka sii gooshto un weya macnaha taasaan ka wadaa marka ilaahay bay tiisa tahay abshirta allahna waafajiyo ha la doorto baarlamaanka waxaan u sheegayaa doorta xaqa doorta qofka wax idiin ah oo waddankan dhibaatada uu soo maray qofkii macnaha mudnaa maantana sii wada beenta iyo barabagandhada la idiin sheegay intaad iska dhaaftaan anigu run baan idiin sheegayaa codkaygu markaan idiin sheegay markii haddii aad siyaasadda siday u tahay iyo dariiqa mustaqiimka ah siduu u yahay aad u fulin waydaan hadhow baad hoos u ooyi doontaan run baan idiin sheegayaa yayna idinka baxsanin ha la doorto qofka mudan axmed madoobe maanta waa qofka mudan in dib loogu soo celiyo waa idin sheegaya anigu run baa idin sheegaya anigu cidna shaqaale uma ahi cidna uma shaqeeya anigu run baa idin sheegaya laakiin xaqaan u shaqeeya runtaan u shaqeeya dadka khiyaamada wadaan ogahay dadka waxay ku mitidayaan ogna waan ogahay oo deegaanku wuxuu ku mitidayo in karaamada ummadda aan dhulka lagu jiidin ummaddaasi waa ummad midaysan reer jubbaland oo dhan danahoodu wuxuu ku xidhan yahay in dib loo doorto sheekh axmed madoobe sheekh axmed maxamed islaam in dib loo doorto ayaa danta ummaddu ku jirtaa micno fara badan bay ugu jirtaa waxay ugu jirtaa sumcaddayada inaanan dhulka lagu jiidinoo dadka sabuurad inta wax loogu soo qoro bacyaal la jiidayaa jira oo lacaga oo meelaha wareegaya yayna lacag idin bedelin hadday lacag idin bedesho sumcaddii ilmihiinna sumcaddii dadkiinna dhulkaad ku jiideen xaggeed ku noolaan marka xaggee baad sharaf oogu noolaanaysaa marka adigana markii lagugu fushado oo buundada lagugu maro trash baa lagaa dhigayaa trash oo wallahi ah xataa kuwa la wato oo maaragtay meesha lagu in la gashto la rabo oo boosceliska ah wax badan kamaba dambeynayaan anaa idiino waa xaqiiq wey waxaani waa group isbahaystay oo qalad isku bahaystay oo waddanka wixii laga soo gudbay waddankan central government uma baahno oo haddaa laga waa inay sidii militariga u maamusho oo waddanka oo dhan ayadu iska maamusho waa laga soo gudbay xilligii qabqablaha waa laga soo gudbay xilligii dictatorshipka waa laga soo gudbay xilligii militariga waa laga soo gudbay waxaa la marayaa xilli federaal ah oo wada tashi ah oo dowladda tani ay ku shaqayn karto oo keliya maamul goboleedyada iyo labada gole ma garanaysaa iyo xisbiyada hadday xisbiya imaadaan iyo xisbiyadu siyaasadda xisbiyada doorashada gali doono waa markii ay imaadaane oo la diiwaangeliye dadku inay dowladdani waa wadaag dowladda laba qof ama se koox yar oo gruub oo xamar iska fadhida ay ayagu meeshay doonaan hasha sumadda ooga dhufan karaan maaha anigu run baa idiin sheegay annagu dowladda waa taageersannahay 100% anigu run baa kuu sheegay dadka balaga u lolaya dowladda oo qalad iyo saxba ku raacaya dowladda inay dumiyaan bay rabaan anigu run baa idiin sheegay laakiin dadka dowladda taageersan waa dadka qaladka dowladdana tusaya jihadu meesha ay tahayna u sheegaya jihada aan u soconno